gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda mudane Cusmaan Nuux Xaaji Macalimu iyo maamulka degmada Balad Xaabo oo horkacay gudoomiyaha degmada mudane Cabdixasiis Cabdullaahi Xareed madaxa xasilinta gobolka Gado Abdiraxmaan Aadan Cabdullaahi Bakaal Kooke iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka guutada Gorkor Dhamma Yuusuf Dirib ayaa kala wareegay mid ka mid ah beelaha dega gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawe raashin iyo 3 neef oo geel ah oo ay u talagaleen ciidanka xoogga dalka Soomaaliya qaybta ku sugan degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado si loo gaarsiiyo ciidamada jooga furunta xuduudda Kenya iyo Soomaaliya u dhaxayso odayaashii waxgaradka ayaa ka hadlay goobta ayagoona sheegay inay garab taagan yihiin dawladda Soomaaliya iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee ku sugan degmooyinka gobolka Gado anagoo ah beesha reer Axmed waxaan taageerinaa dawladda Soomaaliya oo dawladdanadii ahayd oo u baahnayn oo wax badan naga maqnayd oo Ilaahay noo keenay ciidankeedii iyo taliskeedii dawladdaasaan taageerinaa oon soo dhaweynayna maantana loog baan u wadnay geelaas iyo raashinkan gadaasheeda yaalaan u wadnay waa mahadsantihiin dawladdan taageerinaa boqolkiiba boqol baan taageerinaa odayaal baan nahay waxaan ka soconnay marka koowaad waxaan rabnaa inaan sheegno annagu dawladda waa taageernay ciidankaan taageernay waa la shaqaynaynaa si kal iyo laab ahaan u soo dhawaynaynaa annagoo ah beesha reer Axmed waxaan rabnaa inaan idiin sheegno madaxda iyo ciidanka iyo gudoomiyaha degmada loogaasaan wadnay waadna astaahishaan hawrtaasaan wadnay raashinkaasaan wadnay qabiilka reer Axmed baan nahay loogu intaan ku ekaan nahay waa wadayna hadii Ilaahay yiraahdo ciidankan garab taagannahay dawladdan garab taagannahay dawladda ilmaha hadal kuma jiro waa soo dhaweynay walaalaheen oo reer Axmed oo maanta taageerada ballaaran u muujiyay dawladda federaalka iyo maamulka degmada Balad Xaawo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waana salaamayna salaatu islaamka ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaalida waxay tirahaa rag kale tag orodna ma in badan baan oomaneen oo dawladnimo aan u oomaneen odayaashaas waxa ka hadashiinayeen waxa waaye waa dhibaato aan u qabnay dawladnimo waxaas loo keenay beelaha kale inay ku soo daydaan kuleeto hadda beelaha waxaan ogahay wadada ku soo jiro waxa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala marka koobaad waxa kale mahad iska leh madaxda sare ee dawladda federaalka arkaya in loo kala tartamayo taas waxa keenayso biseelka ay bulshadu u qabto dawladnimada waan uga mahad celinaynaa waxaan idin ballan qaadaynaa annakana inaad ka heshaan dawladdiina cadaalad midnimo sinaan dulan la'aan wax kasta cadligaas inay ku socdaan khaasatan annaga xuduudan noola soo diray inaan dhulkan xasilinno waxa way wax badan baa su'aashaas dawladda la weydiinay goormaad xuduudda tagaysaan goormay ciidamadiinu xadka tagayaan goormay dawladdu halka arrinkeeda geynaysaa su'aasha iyada ahayd oo shacabku ay qabeen oo u dirayeen dawladda way ka soo jawaabtay gabagabadiina waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ahna madaxa amniga iyo siyaasadda Cusmaan Nuux Xaaji Macalimu asagoona ku amaanay beeshaani oo soo gaarsiisay raashinka iyo 3 neef oo geel ah ayagoona ugu talagalay in lagu xoojiyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya in ay ku daydaan beelaha kale ee dega gobolka Gado insha Allah ta'ala odayaasha dhaqanka oo maanta geela noo keenay oo beesha reer Axmed boqolkiiba boqol way mahadsan yihiin waxayna garab taagan saad aragtaanba dawladda Soomaaliya waxayna u tahay qabiil ahaan sharaf in ay la garab istaagaan geel ama hanti ay leeyihiin ama cunaha noqota ama geelba ha noqdee inay maanta dawladda Soomaaliya ee xoogga dalka Soomaaliya ciidankeeda ay la garab taagan yihiin waan idinka gadoonay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta qabiil kasta oo degan degmada Balad Xaawo ama degmooyinka hadda ciidamada ay soo gaareen in ay geel bixiyaan hadda saad arkaysaan daraad ilaa dhowr neef oo geel ah waxay bixiyeen beesha reer Cileera beelihii kala degnaana hadda ilaa saak ilaa shalay geel baan rabnaa in laga wareego ee goormaan wareejina oo idinkeena ay taagan yihiin Cabdinuur Shabley Xasan Cabdinuur Shakir degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado